Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Waa mar kale iyo barnaamijkeennii taxanaha ahaa ee aanu kaga hadlaynay silsiladii caanka ahayd ee Guba, oo aanu go'aansanay inaanu dib u soo noolayno ama dib inuu soo gudbino iyadoo maqal iyo qoraal labadaba ah. Haddaba muhiimadda koowaad ee aan ka leenahay soo gudbinta iyo soo noolaynta silsiladan caanka ah ee Guba ayaa noqonaysa in Soomaalida iyo dadkeena dambe, khaasatan dhallinyaradeenna, ay fahmaan dhoolatuska afka Soomaaliga ah ee ay adeegsanayeen gabayaashii kala duwanaa ee ka qayb galay silsiladda caanka ah ee Guba. Haddaba qaybtii 19aad iyo qaybtii 18aad labaduba waa tay inoo joogtay labadii gabay ee isku xigay ee uu tiriyey Maxamed Cumar Dage, oo ahaa ninkii ugu da'yaraa silsiladda caanka ee Guba, oo ogaadeen ahaa, kaasoo uu ku canaananayay kuna dhaliilayay nimankii ogaadeen ee dhulka Caynaba ahaa. Rag badan oo haldoor ahaa ayaamahaas looga laayay, oo ugu horreeyay Allah u naxariistay Xaaji Cumar Camay, isagoo sheegay inay iyagu yaqaanaan sida dad keliya loo dhaliilo ee aysan garanayn sida loo aarsado iyo sida dad la iskaga dhiciyo intaba. Haddaba gabaygan 20aad oo noqonaya gabayga ugu yar ee silsiladda, kaasoo ka kooban dhowr tuduc, ayaa waxaa noo tirinaya Cali Dhuux Aadan oo dhulbahanto ahaa, kaasoo ahaa kii bilaabay silsiladan caanka ee Guba. Haddaba Cali Dhuux ayaa sheegaya in ilaa ay aarsadaan oo raggoodii maqaawiirta ahaa oo ugu horreeyay Xaaji Cumar Camay, ilaa inta ay dad uga aarayaan ausan gabay u furnayn, ogaadeenkuna gar u leeyihiin inay dhaliilaan oo eedeeyaan nimankaas dhulbahante. Haddaba gabaygii 20aad ee silsiladda caanka ee Guba oo noo tirinayo Cali Dhuux Aadan oo dhulbahanto ahaa wuxuu ku bilaabay sida tan: Gun baanahay, gamba cad bay igu xidhan iyo garnaagoode, gashaantimaha sidoodoo kalaan guur u sugayaaye, aniga iyo hablaha loo galmoodo waa gudboonahaye, jeer oon gamboolka iska rido guudka iga saaran, ogaadeenka noo soo gabyow waa gar xaajaduye, ayuu yidhi Cali Dhuux Aadan oo u garnaqsanayay nimankii ogaadeen ee labada gabay ee Maxamed Cumar Dage u soo dhiibay ugu jawaabayay. Haddaba maanta intaa haynoo joogta gabaygii 20aad ee silsiladdii caanka ahayd ee Guba. Insha Allah waa inoo mar kale iyo gabayga 21aad. Fadlan hadday tahay markii koowaad ee aad soo booqato channelkeena Gaalkacyo Media, waxaan kaa codsanayaa inaad subscribe saadho si aad ula socoto suugaanteenna hodanka ee Soomaaliyeed ee kala duwan, waanu dib u soo wada qori doono silsiladihii kala duwanaa. Haddaad horey ugu jidhayna, fadlan fiidiyowga share garee, kana dhiiba fikradahaaga iyo araartaada iyo waxaad jeceshahay in lagu soo kordhiyo ama silsiladaad jeceshahay in la soo qoro.